ninka halkaa idinkaga muuqda waa nin qoda qabuuraha markuu qof soo dhinto afka qalaad waxaa lagu yidhaa grave digger. wuxuu la kulmay arrin yaab leh ama kaag oo afkala taag ah. markii naag soo dhimatay la waayey meel lagu duugo, wuxuu yidhi godkii aan qodnaba waxaana soo gala biyo aad u kulul oo duulaya. 3 maalmood ayaa la iska daba wareegayay. 7 meelood oo kala duwan ayaa la qoday. god aan biyo kulul ka soo baxayn oo lagu duugo ayaa la waayay. war waa la amakaagay. ehelkii iyo dadkii la socday ayaa kala yaacay. way tashadeen. go'aan ayay waxay ku gaareen sanduuq dhagax ah oo aad u culus intii lagu xiro in godka lagu tuuro. waa lagu dhaqaaqay. taas ayaa la sameeyey. halkaa ayay ku dambaysay. wuxuu yidhi markii muddo la joogay ayaan baaritaan dheer u galay. dariskeedii iyo dad badan oo yaqaanay ayaan waraystay. waxaa la ii sheegay inay ahayd qof aad u dhib badan oo xam badan oo guryaha dumisa, iskuna dirta xaasaska iyo dadka isqaba, been u kala sheegta. haddaba waxay ila tahay aayad cad bay arkeen. waxaan leeyahay qof kastow ilaahay ka baq oo carabkaaga ilaaliso. aad ayaa idiin salaamayaa. waa Axmed Boos iyo mar kale.